magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaa maanta lagu caleema saaray ugaas cabdi cali warsame cabdi cali qoti oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka saaxil xaflad loogu qabtay hoteelka berbera beach ee magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed isugu jira cuqaal salaadiin iyo waliba ugaasyo iyo sidoo kale waxgaradka iyo waayeelka dhalinyarada iyo haweenka beelaha ugaaskaasi soo xulay warayna waxa xafladaasi ka hadlay sulaadiinta cuqaasha waayeelka waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda beelaha soo xulay ugaaskaasi iyagoo halkaasi ka cadeeyay inay muddo dheer u fadhiyeen soo xulida ugaaskaasi isla markaana ay isla garteen guud ahaan beelaha soo xulay inay ugaaskaasi caleema saaraan ugaas cabdi cali warsame oo aanu halkan keenay oo ku caleema saarnayno bulshada gobolka saaxil oo dhan horta ugaas buu yahay markay baahideedu timaado gaar ahaan waxaan ka soo xulnay beelaha dan wadaaga sidaas daraadeed dadku waxa iska hadal badan yihiin laakiin isaga baahi ka muuqatay gobolka ayaa keentay oo had iyo jeer dadkay damaqday anigu aan ka mid ahay anuu Hargeysa jooga loo xanibnaa taysaro dawladda hoose inaan yar looga qaadayo ama inaan markaas daraadeed dadku waanu soo xulnay iyo sababaha keenayba sidaas marka isagana waxaanu leenahay ku soo dhawow baahda dhaqanka waa kugu soo dhaweynaynaa wixii tala iyo tusaalana kor iyo hoosba waa ugu sheegaynaa intii aanu ku dhaano garbihiisana waanu nahay waa gardaadinaynaa waa soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa waxa la xilkaas waa xil culus ilaahay ha kugu asturo subhanahu wa ta'ala hawl baa loo dhiibay dhaqaale looma dhiibin hawshaasuna waa hawl mutadawacnimo ah faamana uu ka shaqeyno weeye marka hawshaasuna diiwaanil maamul muddo tacaloo dhibay duco baan ugu daraynaa halka waxaan ku caleemaynaa ugaas cabdi cali warsame oo beesha wadaaga ka sharaxan waa looga maarmi waayay cuqaasheeda waxay u badan tahay Hargeysa caal khadar oo tuulooyinka looga yeeray mooyaane saa daraadeed hawshii baan ugu soo muruxsatay waxa la yiri kaayana damiinta maan walba caaqil ciise muusan baan qaadanaa saa daraadeed waa looga maarmi waayay waxaan loo doortay markii aan soo qaadnay waxaan ku dhiri Hargeysa qabo fasax soo qaado ana ku aragtay laakiin fasax waa ka cuqaasha reerka fasax yaa farti cuqaasha reerka uu ka soo qaado suldaankana waxaan soo shaabaday waa la soo shaabaday waxaan u magacaabay xil maaha dadka qaar baa wixii la soo qaado ka xanaada waxa loo magacaabay waa hawl waa saldhig waa station waa qof la haysto waa mid la xidhay waa mid wax doonaya waxaana kana wareeriyay annaka waa noo guul haddaan noo odayaasha gobolka saaxil waana ku nasanaynaa mushaar lama siiyo barigii hore uqaasha dawladdii hore kulmiye wuxuu dhigi jiray tan waxba dhiibtaba markaa waa mutadawac waa fidaaya waxa ku shaqeynaya qofka nin fidaayada ka daba hadlaana waa yeelkii intaa waxa raacda annaka beelahaan waanu soo dooranay inuu dan wadaaga taagnaado iyo inuu ka dhaqaaqo Suldaan Ciise Muuse Suldaan Heer Sheekh Isxaaq mid Soomaaliland isaga u taala inuu halka taagnaado hore waa wax qabadkiisa halkan waxaanu maanta ku caleema saaraynaa ugaas dhaqan oo bahda dhaqanka ku soo biiray waxna ugaaska guud ee beelaha dan wadaage amba gobolka saaxilba sidaa darteed waxaanu leenahay ugaas soo dhawow xafladda tan caleema saarka cabdi cali warsame ee ay soo doorteen beelaha dan wadaage waa arrin ay beelaha dan wadaage soo xuleen oo aanu uga maarmi weynay markii ma garanaysaa ee hawlo badan ay ka hor yimaadeen shaqo badanna sidii hortay la soo sheegay ay u baahdeen waxaa halkaa ma garanaysaa sidii la sheegay hawsha beelaha dan wadaage markay suldaanka ka baalla dheeraatay iyo cuqaasha inay ugaas yeeshaan way isla garteen waa laga shiray waa la soo saaray waa la keenay
xil ugaasku soo doontay oo ma garanaysaa maanta isagu uu soo doontay maaha waa xil loo gartay waana hawsha dan wadaage beelaha hareeraha naga xiga ee haddii aan laba kuuroo yahay aanu wada dhaqanka leenahayna waxaannu leenahay nagu taageera waayo waxa weeyaan marka horeba wuxuu ahaa nin madax dhaqameeda dadka kala yaqaana aqoonteeda leh xeerarka iyo wax walba yaqaana sidii horeba loo sheegay waa hawl mushahar siin mayno xoolayn mayno berigii hore waa la xoolayn jiray mushahar baa dawladda looga qori jiray hawlo badan baa la geli jiray laakiin maanta waxaanu leenahay waxaaga isku wad waa nin hantiilaa waa nin wixiisa haystaa waa nin aan kiish madhan sidanin oo dadka iibinayn arrintaasaanu dabeedna sidaa darteed baanu u soo xullay waa xul waannu ku caano shubaynaa waannu caleemo saaraynaa dee idinkuna waa mahadsantiin inaad lala taageertaan baanu diyaar idinka nahay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay martidii ka soo qayb gashay caleemasaarkaasi oo iyaguna halkaasi ka sheegay inay beelaha soo xulay ugaaskani la qaateen islamarkaana ay la caleemo saarayaan cabdi cali warsame waxaan leeyahay ku soo dhowow cabdi cali awalba madax dhaqameedku ka mid ahaa dadka ku shaqeeya isagoo aan suldaaniyo caaqiltoona ahayn dadka ku shaqeeyuu ka mid ahaa howlo badan baanu wada gallay waxaan leeyahay waa tii oo maantana xil loo sii dhiigo oo loo sii magacaabay kelmad baan ka yara dhawaajinayaa madax dhaqameedka somalilan waxaan anigu aaminsanahay inay haayadda ugu sarraysa ee qaranka somalilan tahay madax dhaqameedku run ahaantii madashan qiimaha leh ee bilan ee boqran aynu ku caano shubayno maanta ugaaska guud ee beelaha dan wadaago ee lagu soo qoray taytalkiisii uu ku nabad iyo caanamaalay ee ugu horreeyey ee ahaa mujaahidnimada waddankanna dhiigga u soo shubay ilaahayna ka soo reebay kuwii maxay hayday ku hoyday maalintaa ku shiiday ilaahay waxaan uga baryayaa ugaaskii maxay hayday dalka iyo dadka iyo gobolka saaxiil dhammaan anfaca allah ka dhigo cabdi cali maaha nin ku cusub waxaanu leenahay annaguna abiyo isir baanu isaga dhownay beelaha wadaage runtii waa kuwaanu aad iskugu xigna aanu iskarbinno ee aanu had iyo goor dhaqanka iskaga xigna marka leega ciise musaa waanu soo dhowaynaynaa si kaliya laaba baanu kugu soo dhowaynaynaa madashii aad markii horeba ka tirsaneed ee qiimaha lahayd cabdi cali warsame waxaan leeyahay ugaas keliya uma tihid beelaha dan wadaago maanta waad ka kortay oo waad ka naaxday ha isku soo koobin baasho ha isku yaraynin ciise muuse oo dhan baad ugaas u noqonaysaa casaanbo cabdiraxmaan muusuu kadinka ka soo galay ugaasnimada markii dambena waa iskala bixiyey oo ciise muusuu dhinac walba ka dhex qaaday adiguna wadaaga kuguma fillee ha isku soo koobine ciise muuse dhex qaad baanu ku leenahay oo ku soo dhowow beesha wadaagana waxaanu leenahay cabdi cali haddaa keenteen oo aad soo xusheen oo markii horena madasha dhaqanka ka mid ahaa cabdi cali ha is odhanina keligiin buu wax idiin yahaye waa laydinla cidhiidhsanayaa waa laydinla boobayaa waxaana taa keenay taytalka u soo xambaariseen ee ugaasnimada ayaa keenaya in laydinla boobo ma aha wadaagoo keliya uma aha ugaas uu ka naaxay ugaasnimadii wadaage magacuun buu ka soo gelayaa laakiin wuxuu tegayaa madashan ka heer sarraysoo ka qiimo badan buu tegaya cabdi cali waxaa leeyahy mujaahid waad u qalataa in lagugu abaalgudo in ugaasnimo lagu siiyo sababtaa waddanka wax badan baad soo gashatay waanad ku qiimaad leedahay annaguna waxaannu ku leenahay aad iyo aad baanu kugu ducaynaynaa haddaannu beeshii reer wacaysnahay halka ugu dambaysa weeye wax laga caleema saaro waannu kugu caanashubnay caanashubkaaga waannu soo dhowaynaynaa laga bilaabay imminka oo kaydaannu ku saarnay oo kaydiina kugu dhufannay wa subxaana rabbika baannu ku leenahay horta bini aadamku dee qof xagga ilaahay laga soo doortay ayuunbay iyaguna keenaan maxaanku dhahaayey stageka keenaan doorashada iyo karaamada iyo maxaanku dhahaayey hawshaba xagga alluunbay ka timaadaa waxaan maanta aad iyo aad halkan ka qirayaa
cabdiraxmaan cali warsame maanta beelaha dan wadaago aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidii uu sheegay cabdi caliye hadday nin keeni lahaayeen horta way asiibeen maanta cabdiraxmaan cali warsame inay keenaan ugaaskuna wuxuu ahaa meel madax dhaqameed loo baahan yahay oo maanta madax dhaqameed rasmiyahoo loo baahan yahay ayaa goor loo baahan yahay la keenay iyo qofkii loo baahnaa runtii waxaan qirayaa cabdiraxmaan cali warsame haddii maanta lagu caano shubaayo awalba annaga ugaas buu noo ahaa oo ugaasnimuu noogu shaqaynayey oo madax dhaqameed oo dhan hawshiisuu noogu shaqaynayey ma noqonayso maxaanku dhahay runtii ma doonayo anigu ugaaska haddii ay soo saareen beelaha dan wadaage ma doonayo inuu noqdo ugaas aadan ciise laakiin waxaan doonayaa inuu noqdo ugaas ciise muuse oo madal ciise muuse ah meel ka sokaysa aanu istaagin horta waan u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladdan ee soo agaasimay in ay halkan ku caleemo saaraan ugaaskana waan u ducaynayaa waanaan u mahadnaqayaa waa ugaas aadan ciise oo dhan u ugaasa oo maanta lagu soo wada hiranayo inuu noqdo ayay ahayd waxaa ka mila dhalinaysaan runtii aniga maanta farxad gooniya iita farxad aad iyo aad u qiimo badan anugu waxaan garanayaa oo aanu muddo 30 sano iyo dheeraada wada shaqaynayna cabdi cali waxaan garanayaa cabdi cali warsame waxaan garanayaa wuxuu galo iyo wuxuu gudo duruufo adag baanu isla soo marnay waqtiyo badan baanu soo marnay ummadda sidii isugu hogaamin jiray isugu wadi jiray ee runtii intii aanu dhalinyarada ahayn aanu shaqaalaha ahayn wax weyn baan ka dareensanahay in badan oo laga yaabo inaanu tolkii ka aqoon aanu cabdi ka aqaanaa maanta ilaahay beesha wadaaga wuxuu waafajiyey sidii dadkii ugu horeeyaba sheegeen haddii ay cid magacaabi lahaayeen ninkii ugu qiimaha badnaa ee booska qaban lahaa baan aaminsanahay aad baan ugu faraxsanahay duruufo adag iyo waqtiyo adag bana waan soo wada marnay cabdi cali maanta wuxuu galaan garanayaa qiimaha uu leeyahay baan garanayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wax waliba meel bay ka bilaabmaane beesha soo bilowday ee maanta keentay ee halka inoogu keentay ilaahay baa waafajiyey annaguna waanu ka guddoonnay waanu ku faraxsanahay mar labaadka anigoo beesha daarood Ismaaciil magaceeda ku hadlaya ee gobolka saaxil waxaanu qaadanay oo aanu odayaashayada iyo cuqaashayada iyo garaadadayada saalaabintayada iyo boqoradayadaba aanu u sheegaynaa in cabdi cali warsame uu yahay ugaaska guud ee beelaha wadaage ee aadan ciise muuse in uu yahay meel walba warbixintiisa maanta waa laga daawanaya waanu u sheegaynaa annaguna waanu qaadanay waanuna aqbalnay awalan marka ugu horeysa ugaaska waynu u ducaynaynaa ilaahay ha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa waa anfacaa ilaahay ha ka dhigo kii diinta iyo qowlka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ku sifooba ee ku dhaqma insha Allah haddii ilaahay dhaahdo mujaahidku wuxuu ka soo galay daaqadda ugaasnimada ka soo galay baa beeshiisa ah dhaqanka iyo ugaasnimada iyo suldaannimaduna waa aqal lagu wada jiro ugaaska ayay ku xidhan tahay inuu qol kaga xidhnaado iyo inuu aqalkoo dhan hoolkoo dhan isku sii daayo ugaaskana waxa ku filan oo aanu doonaynaa inuu ugaas u noqdo oo uu dhaqan ahaan ku hogaamiyo sumcad wanaagsan uu ku hogaamiyo beelaha degan saaxil iyo dhammaan beelaha reer Soomaaliland oo dhan dhammaantood inuu noqdo ugaas insha Allah haddii ilaahay dhaahdo marka saddexaad xafladan la soo agaasimay ee maanta lagu caleemo saarayo mujaahid ugaas cabdiraxmaan cali warsame waxa la yidhi boqor xigta wuu ka dhashaa tolo wuu xulaa ugaaska maanta halkan waxa kollay wuxuu ka dhashay beesha wadaage waxaana loo soo xulay dhammaanba beelweynta Soomaaliland oo dhan ayuu maanta ugaas u yahay anigoo ku hadlaya magaca ugaaska guud ee beelweynta Sumeer Awal kana wakiila suldaanka guud ee beesha Habar Awal suldaan Xasan suldaan Cabdillaahi suldaan Cabdiraxmaan
suldaan diiriye waxaynu maanta si rasmi ah u shaacinaynaa oo u caleema saaraynaa oo ugu caana shubaynaa mujaahid ugaas cabdiraxmaan cali warsame oo ah nin dalkan iyo dadkanba abaal weyn ku leh ahaa dadkii dalkan u soo halgamay maantana maamuusku inaga helay waxa weeyaan inuu ahaado oday somalilan ayaynu maanta u caleema saaraynaa marka ugaaska aynu maanta caleema saaraynaa wadaaga waa soo xulay laakiin waxaa la doonayaa inuu somalilan iyo soomaaliya waxaa la yidhi jid ma la martay jidiin ma la cuntay jadab ma la gashay 20 sannadood baanu dacwadda ka wada shaqaynaynay kismaayo ilaa iyo libo ayaanu wada lugaynay 20 sannadood ummadda maslaxadeeda iyo aakhiradeeda ayuu waxa weeyaan ka shaqaynayay maanta haddii xil kale loogu daray inuu maslaxadda ummadda nabadaynta walaalaynta ummadda kale furashadeeda inuu maanta loo caleema saarana xilkaa allah u fududeeyo waxaan leeyahay beesha wadaage ee soo xushay waxaan 4 reer baatiin 4 reer hore waxa la idinka doonaya 100 halaad ina waxa weeye halka soo tubtaan ugaas dhaqanka waa la inaga yaqaanaa ugaas cali ugaas maxamuud oo caleema saarkiisa ka qayb galay waxa madasha la soo joojiyay 200 halaad 23 geelaa lagu qalay gaarigiisii baa la soo dhigay moobilkiisii baa la soo dhigay gurigiisii baa la soo dhigay sida haddaynaan yeelaynin waa noo shaqeeye waxa weeye cimaamadiina haysta ugu dambeyntii ugaas cabdi cali warsame cabdi cali qoto oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaan isaga maanta wax hadalay u furnayn marka laga reebo inuu duco ka dalbanayo guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo qayb galay xafladda caleema saarkiisa bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan uga horta waxa la yiri qofkan bini'aadamka u naqine mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqo marka horta mahadda koobaad ilaahay ba iskale talabaadna ka soo qaybgalayaasha waa halka ma garanaysaa waa halkii galbeedii waxbaan kale ilaabaye aad iyo aad baan idin salaamaya aad iyo aad waana mahadsantiin anigu wax kale oran maayo deey duceeyo xil baa la saaray in xilka ilaahay fududeeyo iyo duceeya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله على الدراسة على المسافة كل أبيات وهذا نقفوا cabdi cali warsame cabdi cali qoti ayaa hore uga shaqayn jiray arrimaha dhaqanka iyo sidoo kale samafalka waxaanu muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa howlahaasi waxaana maanta halkaasi loogu caleema saaray inuu ka mid noqdo madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera